ogaada ra'iisul wasaaraha waxa waaye mukeef saaxiib lama aha wuxuu saaxiib leeyahay nolosha idinka aad ku nooshihiin inuu idin kula noolaado waxaad idinka qabtaan inuu idin la qabo annagana midaas ayaan ku taageeranaa dalkeenana inaanan u ogolaanin maanta cid burburinaysa boqolkiiba 70 waxa la yiraahdaa dhalinyaro Soomahan soo ayaan daramaha boqolkiiba 30 inayna adeegsato annaga isku keen layso soo ayaan daramaha in loo adeegsado qabyaalad iyo qurun maanta dhalinyaradaas 140 ay la soo daayay ma qabiila soo daayay qabiil soo ma jirin intaan dawlad la'aanta aynu ahayn ma wax buu u qabtay maanta cidda wax qabatay waa dawladnimada qoriga waxaad u sidataan qabiil ma aha qoriga waxaad u sidataan qaran daladaas qaranka ayaana gabigeena ku wada badbaadi karnaa maanta waxaan idin kugu mid marka aniga intaan soo baxo aan idinkaga tacsiyeeyo dhibkii idinku dhacay aan idin sheega laakiin sababta hal bil ka badan uusan qarax u dhacin sababtay u yaraatay dadkii la leyn jiray sababta amni iyo kala dambeyn uu u bilowday inuu magaaladan ku soo noqdo sababta ummadda rajadeedu kor ay ugu kacday sababta iftiin cusub oo Soomaalinimo ay u muuqato waa shaqadii idinka aa qabateen shaqadii waa muuqataa marka shaqada aa qabanaysaan idinka ayaa ah rajada ummadda Soomaaliyeed si wadanka dhaqaale u yimaadaan waa in amniga wax laga qabtaa si jaamacado iyo isbitaallo iyo iskuulo loo dhiso waa in amniga wax laga qabtaa si qabyaaladda iyo qabiilka loo zuuliyo waa in amniga wax laga qabtaa si sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed loo soo celiyo waa in amniga wax laga qabtaa wax walba amnigu ka bilowdaa waa bilowdeen shaqadii idinkoo aan ogahay inaad ku shaqaysiin daruuf aad u adag sababta mar walba aan idinkugu soo noqnoqono marka waxay tahay inaan idin tusno inaan raalli ka nahay shaqada aa haysaan